Maalmihii la soo dhaafay waxaa arkay wiilkaas YouTube waxa uu ku soo biiray adiga bishii Ramadaan. Marka YouTube-kiisa waxaa ku xiran 10k subscribers, 10,000 oo subscribers. Hadda wiilkaas ma haysto kaamira, hataa faceless waa YouTube-kiisa. Team editors ma haysto, dad aawiyo ma haysto. Haddana 1 month keliya 10k people ku soo biireen. Even hataa waa isla apply garaynay Google AdSense waa ku apply garaynay waxa kaliya ka dhiman in la soo aqbalo ama approval la soo dhaho. Halka anigana YouTube-kayga hal bil gudaheed 500 istaagsan yahay. Adigana laga yaabaa in 9 bilood, 1 sano, 5 bilood YouTube-kaaga hataa gaarin 1k ama adiga meelahaas. Sababta content-geena hun miya mise kaamirada aan isticmaalayna mise adiga ama thumbnail-ka aan isticmaalayno ayaa mid dadka soo jiidanayna ama la soo kala garayn maya intaas dhan maaha anaga kaliya fahansanayn sida loola hadlo algorithm-ka. Marka aan video soo dhigno YouTube waxa uu test yar ama exam yar ka qaadaa videogeena. Imtixaankaas oo inaan ku guuleysano iyo inaan ku dhaano waxay u badan tahay inta badan inaan ku dhaano because of fan uma hayno. Marka uu videoga online soo noqdo YouTube waxa uu dhahaa aan aragno videogan waxa uu yahay si loo ogaado videogaas qiimihiisa value-giisa waxa uu yahay ama si loo tuso dadyo badan videogaas waxa laga qaadaa testgaasina waxa go'aamiyo dad yar oo adiga kugu hiran iyo kuwo kale. YouTube-na waxa uu fiirinayaa videogaaga si uu u ogaado waxa dhacay, haddii ay dadku kala gareeyeen videogaaga, haddii ay daawadeen, haddii ay comment ka soo bixiyeen amaba haddii ay like gareeyeen. Haddii aad ku guuleysato imtixaankaas yar oo dadka aad ka hesho engagement, YouTube waxa uu dhahayaa haddana okay imtixaan kale aan ka qaadno oo dadyo badan aan tusino haddana siduu meelo fog u gaaro. Imtixaankaasna haddana qaabka loo qaadi doono waxa waaye in la tuso dadka ka heli karo videogaaga ama dadka adiga isku niid tihiin videoskooda daawado ama waxyaabaha adiga aad soo dhigto dadyo kale soo dhigo daawadaan videoskooda ama waxyaabaha adiga hadda aad soo dhigto niches kale oo la mid ay daawadaan dadkaas baa loo bandhigaa. Marka aad ku guuleysato imtixaankaasi waa marka la dhahayo videoga viral ayuu noqday waa markaas. Laakiin haddii aad ku dhacdo mid ka mid ah testiskan dadkana aan daawan videogaaga ama engagement garayn videoskaaga, YouTube gabi ahaanba ma push gareeyo videoskaaga. Waana sababta 99% of small YouTubers ay u fail garowaan ama gabi ahaanba YouTube isaga daayaan. Laakiin maanta waxaa kuu sheegi doonaa one secret oo adiga u baahan tahay inaad ogaato si aad u baasto testiskan. Marka YouTube ku jirto ama video soo dhigayso inta badan waxaa dhacda in video ka mid videoskaaga uu performance sameeyo ama uu qarxo. Marka aad hesho video noocaas oo kale ka faa'iideyso because of marka videogaas oo kale hesho YouTube wuxuu ogaanayaa ma aha kaliya niche-kaaga, wuxuu dhab u ogaanayaa channel-ka waxa uu ku saabsan yahay waxa dadkaaga jecel yihiin. Laakiin haddii aad ku eliso video la mid videogaas oo kale channel-kaaga waxa uu ku socon doonaa si la mid videogii la soo dhaafay. Ha u malaynin in content-ga uu hun yahay. channel-kana subscribe soo saar. Peace.